بسم الله marka hore waxaan rabaa mudane gudoomiye xildhibaanada sharafta leh hadii fursad aan helo inaan u tacsiyeeyo isbuuci hadda dhamaaday 15 bisha shacabka Soomaaliyeed ee ku geeriyooday dhibaatooyinka ka dhacay degmada Cabuud Waaq iyo nawaaxigeeda inta dhimatay Ilaahay ha u naxariisto inta dhaawac ahna Allah u boogadhayo qodobkaas ajandaha hadda lagu daray ayaan dib ugu soo noqon doonaa wixii kale oo arrinka aan ka dhahayo middan sharci hindisa sharciyeedka hadda inuu hor yaala ku saabsan howlgabka waxaan rabaa inaan arrinkoodan ka iraahdo howlgabka sidiisaba waxa ay tahay in uu la socdo budget ama miisaaniyadii hildhibaan waa run sida xildhibaanay sheegayaan ajandaha ka hadal taas mooshinaa laga keenay maalinteeda laga hadli doonaa haddii alla waayahay midka shaqaalaha ee hadda laftiisa in hor yaallo doontu ka socoto ayaan kan kale la qeybiyo mar kale aan soo noqon waxaa runtii muhiim ah in criteria-da ama habraaca shaqada lagu qoro hadday tahay mid dawliya iyo hadday tahay mid private ahba ay ku xirnaato muhiimadda ay bulshada iyadu u leedahay shaqo abuurka labor code ama sharci shaqo oo aanay la socon siyaasadii shaqo abuurka ee dalka lafteeda meel dheer ma gaarayso waxaa loo baahan yahay midda kale shaqooyinka hay'adaha gaarka loo leeyahay ama private sector-ka ah waxaan ognahay dadka ugu xirfadda fiican ugu aqoonta badan ugu shaqada iyo howlkarsan ayay inta badan qaataan oo dantooda ayaa ku jirta inay dad si wanaagsan wax ugu qabto ay u shaqaaleystaan laakiin kuwii dawladda waxaad moodaa inay ku xiran tahay xirfad meeshii laga rabay ay ku xiran tahay xiriir ama qofka cidda uu yaqaan meeshii aqoon laga rabay ay ku xiran tahay yaad ehel la tahay ama yaa meesha kuu jooga waxyaabaha marka dhibaato badan bulshadii ay kala kulmayaan oo shaqaalihii dawladda heerarka kala duwan ahaa ee la qorayay aysan ku imanayn xirfad iyo aqoon iyo howlkarnimo laakiin ay ku imanayaan siyaabo kale oo runtii aad u khaldan lafteeda inaan si weyn ugu xusno oo aan ka doodno sharcigan waa muhiim midda kale dhowr sano sida xildhibaankii iga horreeyay uu sheegay waxaa la lahaa shaqaale dawladeed oo la qorayo rayida ciidan iyo amni waxaan ka ahayn ma jiraan oo deyn cafintii iyo barnaamijkii IMF-ta iyo World Bank ayaa in la joojiyo shaqaalaha la qorayo ku xiran tahay hadda maadaama deyntii la cafiyey inaan isweydiino weeyo baarlamaan ahaan door intee la eg ayaan ku leenahay inaan jihayno oo aan kor joogtayno shaqaalaha hadda tahay in la bilaabo meelaha mudnaanta leh ee in wax laga qabto u baahan shaqaale loo qoro dhinaca dawladda intaasaan uga baxayaa waa mahadsantiin